waalidnimada nebi yacquub calayhi salaam ee qur-aankuna barayo laba qodob baan maanta ka qaadanaynaa. waa kow, awlaadda ku xidhan waalidka ee talada u soo celisa dhagaysata waxay ka badbaadaa waxyaabaha da'yarta burburisa. waana midda nebi yuusuf calayhi salaam uu ku badbaaday ee uu mar walba waalidka u imanayay, la tashanayay, waxa ku cusub u sheegayay, khiyadiisa u sheegayay. qodobka labaad, awlaaddu markay garab maraan waalidka oo dhabarkiisa ay wax ka qorsheeyaan oo aanay waxba u sheegin, shaydaan wuxuu u qurxiyaa falal guracan. waana midda keentay wiilashii waaweynaa ee teenagerska ahaa ee yuusuf la dhashay calayhi salaam inay istuseen in aabbahood yuusuf ka jecel yahay. shaydaanna markaa uu u qurxiyey inay dilaan yaraankii reerka, walaalkood. waalidka oo lagu xidhnaado talada loo celiyo, qur-aanku wuxuuna barayaa waa waddo ka mida midda lagu badbaado. allah awlaadina badbaadiyo. wasalaamu calaykum.